agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye oo weheliyo agaasimaha waaxda dhimirka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo maalmihii u dambeysay safar shaqo la xiriira oo kuurgalka adeegyada dhimirka ku marayay gobolada kala duwan ee Soomaaliland ayaa maanta soo kormeeray qaybta dhimirka isbitaalka weyn ee magaalada Boorama. Kormeerkaasi ujeedadiisu ahayd xog ogaal u noqoshada adeegyada dhimirka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa markii uu soo dhameeyay kormeerkaasi waxa uu xariga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay isbitaalka weyn ee magaalada Boorama. dhismahaasi oo ka koobnaa 12 qol ayaa waxa hirgelisay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. xariga jarkan ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay duqa degmada Boorama, mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolka iyo maamulka isbitaalka guud ee Boorama. ugu horeyn waxa madashaasi hadalka qaatay isla markaasina sharaxay baahida ay u qabeen dhismayaashan agaasimaha isbitaalka weyn ee magaalada Boorama Aadan Ibrahim Liibaan iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse waxayna yiraahdeen waxaan maanta xariga ka jaraynay oo agaasimaha guud xariga ka jaray qolalka 12 qol oo ay dhistay wasaaradda horumarinta caafimaadku waxaana ugu tala gashay kor loogu qaado adeega uu bixiyo isbitaalka guud ee magaalada Boorama. wayna ku mahadsan tahay kulli wasaaradda horumarinta caafimaadka oo ay hormuud ka yihiin wasiirka iyo agaasimaha iyo dhammaan shaqaalaha kale. waxa qoray ka qabteen hadda kanun maahe wadooyinkii ugu dambeeyay iyadoo la tacaalayo xanuunkii safmarka ah ee COVID-19 waxyaabaha ugu badan ay keeneen waxa kamid ah in la helo shaybaadkii lagu baarayay xanuunadaasi. waxa muhiim noo ah oo si gaar ah aan u xusaynaa waxa weeyaan maanta hawshan u taaganahay in dhismaha inta leeg oo 12 qol ah oo baahi weyn loo qabay ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaanba in wasaaradda horumarinta caafimaadku ay naga caawiso runtii wax badan culays badan oo hospitaalka haystayna ay ka dulqaato. way jiraan caqabado fara badan sida waxaan soo marnay imika qaybtii dhimirka oo iyada laftirkeega baahiyaadkeegu ay aad u badan yihiin. waa muhiim in bulshaduna ay ku dayato maadaama maanta wasaaradda horumarinta caafimaadku ay dhakhtarka weyn iyo gobolka inta ku soo kordhisay bulshada inteeda kalena aan ka filayno in ay garabgalkaasi. sidoo kale duqa degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri waxaynu u taaganahay oo uga mahadnaqaynaa wasaaradda caafimaadku kaalinta ay ka qaadatay dhisitaanka 12 qol ee laga dhisay dhakhtarka weyn. caafimaadku wuxuu ka mid yahay baahiyaha aasaasiga ah ee ummaddu ay u baahan tahay. annaguna golaha iyaga cusub ama golaha deegaanka ee degmada Boorama cusub waxaan doonaynaa inaanu wax badan ka qaadano arrimaha bulshada inaan xoojino sida biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada. mana nihin dad le waxaana loo qabtay waxaan nahay dad waxaan wada qabsanno ku socda. haddii aan taas ka rumaynana waxay noqonaysaa inaynu wax badan qabsan karno. gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye oo hadalka qaatay ayaa sheegay runtii waxaanu u soconay safar shaqo oo aanu ku maraynay gobolada dalka oo dhan oo muhiimadda ugu weyn ee ay safarka iyagu ahay sidii aanu xogogaal ugu noqon lahayn hawlaha socda ee ay wado wasaaradda horumarinta caafimaadku ee gobolada iyo degmooyinka dalka. gaar ahaan waxaanu xoogga sii saaraynay oo aanu si weyn ugu kuurgallo adeegyada xagga dhimirka ee ka socda guud ahaanba gobolada dalka. gaar ahaan maanta waxaynu joognaa cusbitaalkii Boorama oo aanu soo marnay qaybta dhimirka. waxa la isla qaatay qaran ahaan in kor loo qaado adeegyada dhimirka ee guud ahaan dalka oo dhan. adeegyada kor loo qaadayo waxa ka mid ah adeegga la siiyo dadka dhimirka ka xanuunsanaya haddii ay tahay daawo, haddii ay tahay daryeel, haddii ay tahay cunto, haddii ay tahay hu iyo haddii ay tahay meelihii lagu daaweyn lahaa ama lagu eegi lahaa ama lagu hayn lahaa sidii wax looga qaban lahaa. mashruucaasi oo ah mashruuc gebi ahaanba ka baxaya qasnada dawladda ama kharashka dawladda ee laga qaado cashuur bixiyaasha oo aynay hay'adinay naga taageerayn. haddana aynu doonayno inaynu gobolada dalka oo dhan adeegaasi ka wada bilowno. waxa kale oo runtii aan iyadana sharaf noo maanta inaanu xariga ka jarno mid ka mid ah dhismayaasha faraha badan ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay fulisay. gaar ahaan kan oo ay ka fulisay cusbitaalka weyn ee magaalada Boorama. dhismahan oo run ahaantii ah dhisme payment ward ah oo lagu kordhiyay cusbitaalka weyn ee Boorama oo markii hore payment ward lahayn deedna noqday meel ay runtii cusbitaalku baahi weyn u qabay. waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.